طبعا halka naga daawanaysan waa YouTube channel-ka Liban Kulo fadlan hadii aad nagu cusub tahay YouTube-ka subscribe noo saar like dhe muuqaaladeena sina share garee hadii aad hore noola joogtana aad baad u mahadsantahay waxa aan idin sida muuqaal aanu kaga falcelinayno ama ku sameynayno waxa loo yaqaan reaction ayaa goor si horeysay ka qabsoontay ama ku qabsoontay garoon kamid ah garoonada kubadda cagta ee magaalada Muqdisho ayartaas oo dabcan ay isaga horimaaniyeen kooxaha MCC iyo kooxda gaadiidka haddaba sheekada xiisaha leh ayaa waxa ay tahay in tababaraha kooxda MCC oo ninka lagu magacaabo ama magaciisu yahay Maxamed Lamid Al-Masri oo si ulka ah darbaahi kula dhaqaaqay mid kamid ah ciyaaryahanada qadka dhexe ee kooxda MCC oo isna magaciisa leeyahay Khaliif bal inta aanan ku sheekayn ila daawo muuqaalkan waxyar عجيب وإهانة قف مسؤولة أو هذا أحتوى بردنا وكوها إنه لكن كنوع سو كلا واللي بمال فقراء أو يكون نان كن أو تدعي دا أسود أو شتغن وكل دقة قومت كمدا يرهن ديسا إذا أو وحول بنا أي نقول كرين إن لو حلين كرو قاب خوصي أو احترام بدن وأرن إياه كذا هذا أن كوسي هور قلة مركا كوت وحيالها qaar sida kuwan oo kala waa wax u baahan in dadku bulshadu ay iska diidaan waayo ihaanadu ma aha wax la qaadan karo waliba waxa ay u sii xun tahay adiga oo jooga wadankaaga markii qof meel kale kaaga yimid shaqaale ah oo aad adiga soo kireystay ku shaqeeya adiga oo falka noocaas oo kala ah kugula dhaqaaqo gudaha ciidda aad adigu leedahay oo waxaan adduunyada inteeda kale la aqbalin lana qaadan karin waa wax yaxyaxeeda leh loona baahan yahay in laga taxadiro si waxaasoo kale aanay mar kale u dhicin oo aanay marna u suura gelin ninkan hadda aan ka sheekeynayno oo isagu ah tababaraha kooxda MCC waa ninka lagu yeero Maxamed Lamid Masri sidoo kale waxa uu sameeyey wax kale oo u eg yasid amaba wax u muuqday inay markaa qayb un si ahaan u akaayeen waxa loo yaqaan kibirka jeeska iyo isla weynida ciyaaryahan kamid ah ciyaaryahannadan kooxdan ayaa waxa uu kubad la helay goolka kooxda kale farxad daraadeed isaga oo faraxsan ayuu soo cararay siibtay fanaanada waxa markaa daba cararayay kooxdii uu isaga ka tirsanaa oo iyana ku faraxsan goolkan u dhashay iyo laacibkan goolka u dhaliyay haddaba laacibkan ayaa markaa waxaa ku jiray sida aan anigu dareemi karo waa ma aad idinkoo laftirkiinaba arki doontaan kayro ku aadan bal in farxaddan uu la wadaago tababarihiisa markii uu ku soo cararay maxaa dhacay bal indhahaada adiga laftirkaaga idaawanaya ila daawo وعجيب باركتن سدا وإسقى فيلقي فرقني أريي أما بيسقى بيرني سدا قف صنخبة أو لقى عرري أو كله أما وثق جركي سياهي أو أنا مركع لو أتكيسي كان عرفتك الصبح هيسا أما بعد لي ليس أو كله ووح ورنتي ليابي حتى بقى مقال كان مركي وخبصري guud ahaan baraha bulshada oo ay dadku isla wadaageen ayaa taas waxa ay ku dhalisay walwal iyo walbahaar ninkan falkan geystay ee tababaraha ah ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Masri waxa uu isku dayay bal inuu arrintan qaboojiyo waxa uuna yimid mid ka mid ah telefishinada Soomaalida oo ah Stan TV si uu bal arrinka u qaboojiyo bal aan daawano hadaladiisii oo af Soomaali lagu dul turjumayo بس أنا مدرب في بعض الأحيان نتصرف تصرفات
بس نعالج وضعية بس نعالج. anigu waxaan ahay tababare mararka qaarkood waxaan u dhaqmaa si aan u xalliyo xaalad jirta markaas ama dhibaato jirto oo kooxda dhexdeeda aniga xiriirka aan leeyahay laacibiinta waa mid aad u weyn oon maarata halkan lagu soo koobi karin aniga xiriirka igala dhexeeya ciyaartooyda xataa waxay ka sarreysaa marka qaarkood tababare iyo ciyaartooy xiriir ka dhexeeya laakiin haddaad si fiican u fiirsataan wixii dhacay khaliifa xataa markii uu khaldamay anugu lama hadlin oo ma canaanan laacib kastoo khaldo ciyaarta socotan lama hadlo laacib kastoo khaldo aan lama hadlo markaas ciyaartaa marka waxaan isku daynaa keliya aan dhiirigelin isku daynaa laakiin khaliifa shalay wuxuu sameeyey waxaa weeyaan khaliifa sidiisaba waxaa waaye waa laacib aad u weyn waay laakiin sidii waa wax fiican in uu yimaado tv-ga islamarkaana uu hadlo hase yeeshee weli wax raaligelin ah kama uusan bixin khaladaadkii uu geystay bal aanu dhinaciisa aragno ciyaaryahanka khaliif oo ah ninka uu dharbaaxida kula dhaqaaqay tababarahan isna bal radka uu bixiyey ama raduud ficilka xaggiisa iyo sida uu uga falceliyey arrinkan ila daawa isna astaan marka hore aad umahadsantihiin wixii shalay dhacayne kulleyta wax saas weyn maahan macalin iyo ciyaaryaankiisa wax dhexmari ahaayeen taasna wax weyn ma ahayn runta marka loo hadlo aniga waxa u arka dhiirigelinay tahay macalinka daba soo sheegay markaan khalad sameynay wax way dhaama lahan laakiin marka ciyaarta barajana ka bacdi oo ii wacay taasna waxay ka dhiirigelin waa dareensanahay ciyaarta markasta markuu jirto ciyaarta markasta khalad waa dhacaa haddii oo qalad jirna ma la iska badal lahayn qalad waa dhaca markasto khaladkayga aniga og haddana macalinkii hurdadigiisii kacashay marka sii lahadnay si fiican oo sii dheeli dhiirigelin laga qaada wallahi horta wixii shala dhacay waxaa ii muhiimsan horta guusha gaaran alxamdulilah ilaa maanta iska leh marka xigta macalinkii iyo anigii dadka dhahay macalinka dad xumaan u fahansanaa jira oo dhahay social media camal macalinka saas waay anigu waxaa dhihi lahaa macalinkii waxbay ku dhigin khaladka anaa iska leh anaana qaadanayo kulankaas horta kulan geem waay qof walba wada sugaysaa maxuma in khaliif uu isna dhinaciisa ka sheegay inaanu waxba u qabin islamarkaana xumaan u arkayn tababarihiisii iyo wixii dhexmaray aanu wax kasoo qaad u arkayn aada u weyn haddana muhiimadda meesha ku jirtaa waxay tahay adduunyada ma jiro waddan dadkiisu dad dibadda ka yimid ay sidaas oo kale ihaano ugula dhaqaaqi karaan qofka waxa uu qiimo ku leeyahay waa ciiddiisa ninkan annagu ma diidanin mana nihin cunsuriyiin mana necbin ajnabiga laakiin waa in uu ku dhaqmaa sharciga iyo qawaaniinka qaabilsan sportsiga iyo shaqada uu ka haya halkaa oo aanu samayn xadgudub waayo anigaba hadda waxaan ku noolahay waddan kale oo ajnabi ah aragtida dadka aan la noolahay iyo fal celinta ka imaan karta haddii waxaasoo kale aan sameeyo waxay noqonayaan wax arrinteeda leh fadlan qofka muwaadinka ah waa inuu karaamo ku leeyahay waddankiisa ujeedadaydu ma aha ajnabi nacayb mana ahi cansuri laakiin waxa aan mararka qaar loo qaadan karin ma aha inaanu ka aamusno waa khasab in wixii aanu aragnaa khalad aanu ka hadalno sidoo kalena waa inaan isku daynaa in aanay dhicin waxaasoo kale ma jiro dabcan tababare xaq u leh inuu dharbaaxi ku dhufto ciyaaryahan weliba isaga oo ku guda jira shaqadiisii garoonka amaba ciyaartii uu dhaliyey ku guda jiro weli kollay aniga uma arko inay tahay cunsuriyad mana aha nacayb mana aha ajnabi nacayb laakiin waa khalad u eg gaf ihaano ah oo aan marna la qaadan karin daawadayaal intaasi ayay ku eg tahay sheekadan kooban ee aan reactionka kaga sameynaynay tababarahaasi iyo ciyaaryahankaas tan iyo intaan reactionno kale oo kale ah mar kale dib isugu kulmi doono waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin mac salaama nabadino